waxaa si habsami leh ugu socda xarunta ay ku shaqeynayaan guddiga doorashooyinka madaxtinimada dalka Soomaaliya diiwaangelinta musharaxiinta u tartamaysa jagada madaxtinimada dalka Soomaaliya ilaa haatan waxaa iska diiwaangeliyay dhowr musharax oo ay tilmaameen guddiga inay buuxiyeen dhammaan shuruudihii loo dejiyay musharaxiinta u taagan jagada madaxtinimada dalka Soomaaliya musharaxiintaasi ayaa waxaa qayb ka ah Ambassador Maxamed Cali Nuur Americo iyo Professor Saciid Ciise Maxamuud oo labaduba qayb ka ah musharaxiinta u taagan jagada madaxtinimada dalka Soomaaliya Professor Saciid Ciise Maxamuud oo kamid ah musharaxiintii buuxiyay dhammaan shuruudihii loo dejiyay musharaxiinta u taagan jagada madaxtinimada dalka Soomaaliya ayaa la hadlay Somali News TV uguna warbixiyay dareenkiisa ku aadan hanaanka diiwaangelinta runtii maantay dadaal dheer oo soo galnay oo aan soo bilownay sanadkan bilowgiisii waxaad u malaysaa maantay in la soo gaaray mowqif mar hore loo baahnaa in la helo oo ah bisha September maaragtay macnaha ama Agosto wax la rabay inay dhacaan waa ka xunahay waqtigaas jiitamayay laakiin ilaahay mahadis maantay oo maaragtay waxaa ii suurtooday aniga inaan maaragtay isdiiwaan geliyo oo aan maaragtay aan shuruudihii looga baahnaa musharaxnimada madaxweynaha aan dhammaystiro sidaas daraadeedna maaragtay aan ka mid noqdo musharaxiinta rasmiga ee u taagan xilka qabashada madaxtinimada Soomaaliya waan gartay ka waran qaabkii markaad u tagtay guddiga doorashada isdiiwaangelinta ay socotay ifafaalaha kaaga muuqday dareenkaaga bal ka waran sidoo ah markaad goobta ku sugnayd runtii haddaan cabiro dareenkayga waa garan kartaa oo dadku aad bay u dadaalayeen oo dadka guddiga qabanqaabadu xog ay u dadaalayeen dadaal fiican way wadeen laakiinse maartay wali waxa maartay aan muuqatay xagga abaabulkii in maartay wax badan oo aysan sidii loo baahnaa maartay macna wax leeyahay soo dhacaynin dad badan meeshii ku jiray qofkii maartay musharaxaha waxa laga yaabaa asagoo diyaar wixii soo dhameystay in maartay saacad iyo 2 saac kaliya ay maartay ka qaadato moogtahay xiriiradii gudaha ahayd sidii maartay waxooda ay u samaysan lahaayeen oo u hambalyeynaya guddiga doorashada howl culus ay qabteen oo ah maartay qabanqaabo wanaagsan ay sameeyeen waan rajeynayaa maartay inay kulay waa aragnimo badan ay ka dhaxlaan sababtoo ah maartay dadka mas'uuliyiinta ah ama musharaxiinta ah waxyaabo fara badan ay u baahan yihiin markii ay meesha imaanayaan inkastoo maartay amnigoodii meesha ay joogaan ay hadbilla Hargeysa oo amnigooda uu iska wanaagsanay haddana maartay muxuu ahaa mararka qaarkood dadkii howlwadeenada ahay iyo dadkii maartay musharaxiinta ahay iyo maartay dad meesha booqasho u yimid iyo dad maartay waxyaabo fara badan maartay dana badan kala ahay ayaa xoog isugu dhex qasnay marka way ficnaan lahayd runtii haddii maartay qaab ka duwan uu jiri lahay oo loo baahan yahay maartay in maartay ay dhacdo in si maartay dadkii musharaxiinta ahay qol special loo sameey lahay halkaasna maartay waxooda loogu gudbi lahay inuu heli lahaayeen maartay wax adeeg u baahnaayeen sida ugu degdegsaha badan oo u heli lahaayeen dhanka kale Professor Saciid Ciise Maxamuud ayaa ka codsaday xubnaha labada aqal ee dalka inay codkooda siiyaan waxa uu tilmaamay inuu yahay shakhsi samata bixin kara dadka iyo dalka Soomaaliyeed waxa la filayaa 8 bisha soo socota ee February in ay ka qabsanto gudaha dalka Soomaaliya doorashada madaxtinimada dalka Soomaaliya dalkana u yeesho madaxweyne cusub Xasan Kahye Somali News Muqdisho